markaad matalayso dal Soomaaliya la yiraahdo feelinka iyo dareenku caadi ma aha marka anaga naftigeena waa soo nooleyseen dib baa waxa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sidee aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaan noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah waa meesha kaga jirtaan runtii annaga waxay noo tahay waqtigan hadda aan ku jirno iyo guusha soo gaarteen dhalinyaro waa guul taariikhi ah oo waayahan Soomaaliya aan laga maqlin Soomaaliya inta badan waxa lagu asteeyaa ama la yiraahdaa waa meel magacyo badan loo bixiyo oo xun ah dhalinyaradeennana waa maqlaysaan oo waxa la yiraahdaa magacaas xun ay leeyihiin oo dadkay laayaan oo caalamka iyo adduunka oo dhan yaa ka qeyliyay shacabkooda ka qeyliyay dadkooda ka qeyliyay marka wax wanaagsan oo aad u fiican waayahan Soomaaliya laga ma sheegin marka waxaan idin sheegay taariikhda gasheen xulka qaranka tihiin laakiin anigana tiimkayga tihiin tiim kale ma lihi xulkan qaranka awal raggaasa tiimkayga ahaan jiray xulka qaranka maxamed Ismaaciil Cafiifiyo laakiin hadda idinkaa bedelay hadda macnaheedu waxay tahay hawshii aad qabateen iyo meesha kaalintaad ka gasheen waa waxay Soomaaliya runtii ku faani doonto waliba waqtigan adag lagu jiro haddii xaaladdu iska fiicnaan lahayd oo uu dalka dagaal sokeey ka dhici lahayn hadda guushaas aad keenteen macna ma lahaateen laakiin guusha hadda aad keenteen waxay macno weyn u leedahay xaaladda adag aan ku jirno iyo magac xumada Soomaaliya ee adduunka ka leedahay Afrika inaad kor u soo qaadaan oo astaantii qaranka aad muujisaan inay Soomaaliya soo noolaanayso oo idinkuna aad qayb ka tihiin inaad Soomaaliya dib u soo nooleynaysan marka aad iyo aad yaan ku mahad celinaynaa aad iyo aad annaga waxay nala tahay waad guuleysteen intaas oo dal yaad ka soo guuleysateen idinkoo dalkiina burbursan yahay idinkoo dalkiina uu xaaladan adag ku jiro dawladdiinu iska daciif tahay oo aysan tabar badan lahayn oo hadda ay soo kabanayso yaa waxaad gaarteen meel aad iyo aad u sarreysa oo aad ka badiseen dawlado badan oo aan burbur ku dhicin dawlado badan oo 30 sano soo dhismaayay yaad ka hormarteen guushaas runtii aad gaarteen qayb weyn waxaa ka ah Cabdiqani iyo xiriirka kubadda cagta oo runtii muddo dheer soo shaqeeyay iyadoo waliba dawlad la'aan ama dawlad jilicsan ama dawlad dib ku jirta ay ka dhex shaqeynayeen oo waliba dagaaladan iyo qarxayadan ku socdeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sacrifice kay soo galeen iyagana taariikhda qorays insha Allah hadda wixii ka dambeeya marka hadda wixii ka dambeeya dagaalkan waa ku wada jirnaa kulligeen إن شاء الله هدو الله يراهدو حالدينا مالين يعني ولا صعننا تبركينا يو عيارتنا يو نولشينا يو وحبرشدينا كله والله صعننا إن شاء الله هدو الله يراهدو بعدما أستان قرنتين سدح البلاد صوص صعطة وحنسكت ديارنا أغسطس عيارها 17 تضبط سنة وحكير أفريقيا يا اسكو ديارنيسان 3 bilood soo socota naftigeena waxna laga rabaa dadaal aad iyo aad u weyn in la galo oo aan la isdhigan oo Afrika aan ka soo qaadno oo la yiraahdo Soomaaliya waa soo noolaatay waxaana soo nooleeyay dhalinyaro meesha dhalinyaro kale in burburinayaan idinka inaad soo nooleysaan Soomaaliya oo magac fiican iyo sharaf fiican iyo meesha Soomaaliya adduunka ay kaga jirtay aad dib ugu soo celisaan macnaheedu waxay tahay Ilaahay ka sokow waxay ku jirtaa gacantiina iyo dadaalkiina iyo shaqadiina iyo waxay ku jirtaa sida aad u shaqeysaan iyo ku jirtaa annagana wax alla wixii garab ah oo gacan leh oo dadaal ah oo aan ka geysan karno sidii aad number 1 aad u noqon lahayd Afrika waa idin kala shaqeynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan maxaan ku raahdaa Maxamed Ismaaciil Cafiif
aan halkan idinkaga sheego way soo mareen meeshaad joogtaan weydiiya iyaga sidai ahaayeen markii ay u soo cayaarayaan magac Soomaaliyeed iyagoo xul qaran ah dareenkooda weydiiya dareenkoodu wuxuu ahaa midaan caadi ahayn annaga naftigeena markaas dhalinyaraan ahayn waa ku faani jirnay bacdama ay ahaayeen maxaan ku rahaa dad u taagan qarnimada Soomaaliyeed calankeena kor u qaadaya iyagaa idiin sheegaya dareenkooda suu ahaa markaad matalayso dal Soomaaliya la yiraahdo feelinka iyo dareenku caadi ma aha marka annaga naftigeena waa soo nooleyseen dib baa waxa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sidee aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaan noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah waay meesha kaga jirtaan has dhiganina dadaalkiina laba jibaara saddex jibaara meeshaan waa meesha Soomaaliya ay dib ugu soo noqon lahayd sharafkii ay lahaan jirtay iyo magacii lahaan jirtay marka shaqadiina shan jibaara annagana insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa idinla shan jibaarina waa idinla toban jibaarina hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah hadalkay waxaan ku soo gabagabeynayaa meelihii aad ku tababaran lahaydeen iyo qaabka aad u tababaran lahaydeen iyo siday ahaan lahayd 3 bilood soo socota waxaan rabaa wasiiraddu inay iga siiso iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha xiriirka si joogto ah ay iga siiyaan warbixin hadba xaaladda meesha marayso insha Allah waana guuleysanaynaa Soomaa waa noo balan Soomaa inaad magacii iyo sharafka soo celisaan Soomaaliya guul yani anigana